بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياشا ku xiran MK Channel waa Ustaad Memory iyo sharxitaanka maadooyinka scientific maanta waxaynu bilaabi doonaa maadada xisaabta ee fasalka 8aad. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujanay gambaleelka like commentina waa inoo muhiim mahadsanid. goordhow waxaad daawan doontaan ama aan soo gelin doonaa barta YouTube-ka MK Channel maadada physics-ka ee waliba fasalka form 4 biidnillaahi ilbaari. tusmada buugga ee fasalka 8aad haddii aynu ku urgalno waxay ka mid ah cutubka koowaad aynu ku baran doono urur, halka cutubka labaad aynu ku baran doono jibaar, cutubka saddexaad aynu ku baran doono tirooyin, halka cutubka afraad aynu ku baran doono qorma saynis, halka cutubka shanaad aynu ku baran doono aljabra, cutubka lixaadna aynu ku baran doono cabiraadaha, iyo cutubka toddobaad aynu ku baran doono geometry, cutubka saddexaad aynu ku baran doono aragtida Pythagoras. taa oo micnaheedu tahay tusmaha buugga ee fasalka 8aad ee maadada xisaabta inuu ka kooban yahay 8 cutub. 8 cutubna insha Allah mid waliba waan dul tagi doonaa inta karaankeena ah sida aan idinku fahansiin karana waa idin fahansiin doonaa biidnillaahi ilbaari. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujanay gambaleelka like commentigana waa inoo muhiim mahadsanid. waxaynu sii gudagalaynaa cashirkeeni maanta urur. cutubka koowaad ayaynu ku hormaraynaa waa urur. haddaba cutubka koowaad intaanu gelin cashirada aan ka kulmi doono ama aan ka falanqeyn doono maxaa ka mid ah. cashirka koowaad waxaynu ku arki doonaa urur guud iyo urur duleed. urur guud muxuu yahay, urur duleedna muxuu yahay, intaba iyo waxyaabaha sida loogu shaqeeyo ayaan baran doonaa ama aan ku baran doonaa cashirka koowaad ee cutubka koowaad ee la magac baxay urur. halka cashirka labaad ayaan ku baran doono hababka loo qoro ururada, taana waa cashirka labaad balse waa cutubka koowaad ee la magac baxay urur. balaan sii gudgalno cutubka koowaad urur, cashirkiisii koowaad urur guud iyo weliba urur duleed. waayahay haddii aan sii gudgalno cashirkeenii koowaad waxa uu la magac baxay waa urur guud iyo urur duleed, balse waxaynu soo hormarin doonaa waa maxay urur guud. qeexidda maanta ee aan ku dabaqayno ama aan ku qeexayno urur guud ayaa waxay noqonaysaa sida tan. urur guud waa ururka soo koobaya dhammaan ku tirsanayaasha ururada, waxaana loo qoraa ama loo asteeyaa xarafka weyn ee ga ama u. urur guud waa ururka soo koobaya dhammaan ku tirsanayaasha ururada, waxaana loo qoraa ama loo asteeyaa xarafka weyn ee ga ama u. dhammaan ururada waa hormo ururo ururka guud. haddaba hormo ururo ururka guud maxaa loola jeedaa? haddabase ururka guudse calaamada aan ku fahmi karno ama xarafka aan ku fahmi karno waa ga ayaa loo qaataa ama u ayaa loo qaataa. qeexiduna waa urur guud waa ururka soo koobaya dhammaan ku tirsanayaasha ururada, waxaana loo qoraa ama loo asteeyaa xarafka weyn ee ga. waayahay kaba soo qaad haddii ururka ba ay tahay ba, ja, xa ku tirsanayaashiisu yahay, ururka taana ku tirsanayaashiisu yahay ta, ka, ma. haddaba ururka guud wuxuu noqonayaa ba, ta, ja, xa, ka, ma. taa oo micnaheedu tahay dhammaan ku tirsanayaasha ururka ba waxay ku jiraan ururka guud. taa waxay ka dhigan tahay marka in ururka ba oo hormo urur u yahay ururka guud. dhammaan ku tirsanayaasha ururka ta waxay ku wada jiraan ururka guud. taa micnaheedu waxay tahay in dhammaan ama ururka ta uu hormo urur u yahay ururka guud. haddaba hormo urur maxaa loola jeedaa? waxaan ahnay hormo urur waxaa loola jeedaa haddii ururka guud ku tirsanayaashiisu laga arki karo dhammaan ku tirsanayaasha ururka ee laga arki karo ururka markaasi la dhahayo hormo urur ayuu u yahay. haddii laga arko waa hormo urur. haddaba haddii mid ka mid ah ay ka maqan tahayna uma ahan hormo urur. haddaba waxaa la leeyahay dhammaan ururada waa hormo urur ururka guud. urur guud ayaan qeexnay. waxaynu ku qeexnay urur guud waa ururka soo koobaya dhammaan ku tirsanayaasha ururada, waxaana loo qoraa ama loo asteeyaa xarafka weyn ee ga ama u. dhammaan ururada waa hormo ururo ururka guud. waxaan filayaa halkaa inaad fahanteen. balaan sii gudgalno cashirkeenii maanta. waayahay tusaalaha ugu horeeya waxaan rabnaa inaan sawirno aan weliba sawir aan ku muujino
ururada soo socda. Waxaan sawir ku muujinayaa ururadan soo socda anigoo haysta ururka ba 1 2 5 6, ururka ta 3 7 9 iyo ururka guud 1 2 3 5 6 7 9. Waxaan ku muujin doonaa wax loo yaqaano Venn diagram, ama si kale haddii aan u dhahno waa aragtida ama wax loo yaqaano sawirka ama jaantuska Venn. Haddaba jaantuska Venn si ku muujinaynaa ururka guud marka aynu sawirnayno waxaan isticmaalaynaa laydi. Laydigaasi aa u jeedi sawirkaahi waa urur guud. Gaa aan u bixino oo micnaheedu tahay ama sumad u ah urur guud. Dhexda ayaan waxaan ku sawiraynaa goobooyinkaasi ama goobadani waxaan u bixinaynaa ururka ba. Ogow goobadu waxay ku dhex sawirantahay ururka guud. Micnaheedu waxay tahay goobadu wixii ku jira urur guudna way ka mid tahay. Maxaa yeelay hore waxaan u soo sheegnay ururkaasi ama ba waa hormo ururka ga, sababtoo ah 1 2 5 6 dhammaan ururka guud ayaa ku wada jiraan. Marka waxaan dhahaynaa marka ururka ba wuxuu hormo urur u yahay ga. Sidaa awgeed markaan sawirno laydiga oo u muuqata inuu sumad u yahay ururka guud, waxaan sawiraynaa circle ama wax loo yaqaano goobo oo ah B ama ururka B. Waxaynu goobadaasi dhexdeeda ku dhex qoraynaa ama ku dhex qoraynaa numberska ama ku tirsanayaasha ay leedahay ururka ba. Ku tirsanayaasha ay leedahay waxaa ka mid ah 1 ayaa ka mid ah, si la mid ah 2 ayaa ka mid ah, si la mid ah 3 ayaa ka mid ah, ama 5 ayaa ka mid ah cafwan, si la mid ah 6 ayaa ka mid ah. Ku tirsanayaasha ururka ba ayaan ku qornay goobadii aan u bixinay inay tahay ururka ba. Si la mid ah ururka ta ku tirsanayaashiisu dhammaan waa laga arki karaa ururka guud. Taa micnaheedu waxay tahay ta waxay hormo urur u tahay ururka guud. Waa tii aan hore u soo dhahnay dhammaan ururada waa hormo ururka guud. Taa iyaduna waxaynu ku sawiraynaa anagoo weliba aan ka dhex bixinin laydigani ayaan waxaan sawiraynaa goobadaasna waxaan u bixinaynaa T oo ah ama ta ururka ta ah. Goobada ayaan waxaynu ku dhex qoraynaa ku tirsanayaasha ama dhammaan ku tirsanayaasha ururka ta. Ku tirsanayaasha ururka ta waxaa ka mid ah si la mid ah 3 ayaa ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah 7 ayaa ka mid ah, iyo weliba 9 ayaa ka mid ah. Kadib intaanu go'aanka gaarin ayaan waxaynu fiirinaynaa ururka guud wax miyaa ka haray oo aanan ahayn ururadan haddii aan mid waliba booskeeda gelinay, wax miyaa ka haray. Ileen 2 waan u jeednaa, 1 waan u jeednaa, 2 sidoo kale, 3 sidoo kale, 4 sidoo kale, ama 5 sidoo kale, 6 sidoo kale, 7 sidoo kale, 9 sidoo kale. Marka jawaabtu waa intaas. Markii la sawiraayo ururka ama urur guud markii la sawiraayo qaab noocaas ayaa loo sawiraa. U qaado ururka guud laydiga, u qaado ururada la tilmaamayo circle-ka ama goobada u qaado, kadibna laydiga marka sidaa u sawirto oo aad ku dhex sawirto yacni goobada taa oo u dhigmata marka ururka markaas la tilmaamayo goobadaas u dhigmata. Kadib ayaa waxaad goobada ku dhex qoraysaa ku tirsanayaasha dhammaan ururka markaas aa u bixisay goobada. Haddii ga oo ah ururka guud ay la mid tahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ururka aana ay ku jirto 1 2 5 6, ururka baana ay ku jirto 3 9. Waxaan sawirayaa jaantuska Venn si aan u matalo ururada. Hore waxaan u soo sheegnay markaan ururka guud sawirayno waxaan isticmaalaynaa laydigaas waxaan u bixinaynaa ga oo ah ururka guud. Laydigaas waxaynu ku dhex sawiraynaa inta yacni urur ee markaasi nala sheegay ama la tilmaamayo oo hormo urur u ah ururka guud. Sida ururka A ayaan goobo u samaynaynaa anagoo u bixinaynaa A. Kadib goobada ayaan waxaan ku dhex qoraynaa inta ku tirsanayaal ee ku jirto ama ku tirsanayaasha ku jira ururka A. Waxaa ka mid ah 1, waxaa ka mid ah 2, waxaa ka mid ah 5, waxaa ka mid ah 6. Sidoo kale waxaan sawiraynaa goobada waxaan u bixinaynaa ba. Haddaba waxaynu ku dhex sawiraynaa ama ku dhex qoraynaa ku tirsanayaasheeda. Waxaa ka mid ah ku tirsanayaasha ururka ba 3 ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah 9 ayaa ka mid ah. Haddaba ururka guud aan u soo laabano 1 waxaan ugu jeednaa ururka guud oo weliba ururka A. 2 sidoo kale waan u jeednaa, 3 sidoo kale ururka ba ayaan ugu jeednaa, laakiin waxay ku wada jiraan ururka guud. 4
maadaama ay meesha ka maqan tahay oo labada ururna aysan ku jirin laakiin ururka guud ay ku jirto laydiga ayaan dhex dhigi doonaa iyo 7 iyo weliba 4 iyo weliba 8 taa micnaheedu waxay tahay ururka guud ay ka tirsan yihiin laakiin markaasi kama tirsana ururka A iyo ururka B laakiin waxay ku jiraan xindaabka ama laydiga ururka guud ay ku jiraan 8 4 iyo 7 qaabka ayaa loo sawirayaa qaabka marka uu sawiraysi laydi ahaana u isticmaalaysaa ururka guud ururka aad tilmaamayso sirka loo isticmaal ama goobo isticmaal kadibna ku tirsanayaashiisu goobadaasi geli wixii ka soo baxa ee soo harana barnaamaha ayaa dhigaysaa oo waliba adigoon ka dhex bixin laydiga waayahay haddaba urur duleed muxuu yahay ururka guud maadaama sidaanu ku soo fahnay urur duleed maxay tahay urur duleedku waa urur ku jira ururka guud oo aan ku jirin ururka markaas la tilmaamayo urur duleedku waa ururka guud ayuu ka mid yahay laakiin ma ku jiro ama kama mid ahan ururka markaas la tilmaamayo si kale aan u qeexno waxaan leenahay urur duleedka ba waa ururka dhammaan ku tirsanayaashiisa ku jira ururka guud oo ga ah laakiin aan ku jirin ururka ba waxaan u qori karnaa ba oo yacni markaas sidaa ah waxaan kaloo dhihi karnaa urur duleedka ba ee ku jira ga urur duleedku waa urur ku jira ururka guud oo aan ku jirin ururka markaas la tilmaamayo urur duleedka ba waa ururka dhammaan ku tirsanayaasha ku jira ururka guud laakiin aan ku jirin ururka ba waxaan u qori karnaa qaab noocan oo kale ah waxaa kaloo la dhihi karaa urur duleedka ba ee ku jira ga balaan fiirino anagoo ku dabaqeyna marka exampladiisii iyo tusaalooyinkiisii haddii ba ururka ba ay ku jirto liin cambe liin babaay moos iyo cambe ururka gaana ay ku jirto liin qare babaay moos saytuun cambe iyo qajaar waayahay jawaabta aynu bixin doonno waxay noqonaysaa qaab noocan oo kale مثلا waxay noqonaysaa fiiri ba oo ah urur duleedka ba waa qare saytuun iyo qajaar sideen ku soo saarnay waxaan leenahay urur duleedka hadaa maqasho waa hadda waxna la siiyay waxay tahay waa ba ana la siiyay ururka ba iyo sidoo kale ururka ga oo yacni ga na la siiyay waxaan raadinaynaa marka waxaan rabnaa marka ururka ga wax ku jira ee aan ururka ba ku jirin ayaa waxay inoo noqonaya marka ururka wax loo yaqaan urur duleedka ba مثلا liin waan haystaa babaay sidoo kale waan haystaa moos sidoo kale waan haystaa cambe waan haystaa maxaa ka maqan ururka ba ee ku jira ururka ga waxa ka mid ah qajaara ka mid ah ururka ba kuma jiro haddaba urur duleedka ba oo ka mid noqonaya si la mid ah saytuun ayaa ka mid ah saytuun asiin wuxuu ka mid noqonayaa urur duleedka ba maadaama aysan ku jirin si la mid ah qajaar ayaa ka mid noqonaya sababtoo ah ururka ba'da ee la tilmaamayo kuma jiro taas waa marka aan leenahay marka ururka duleedka waa ururka ururka ka mid ah ururka guud laakiin aan ku jirin ururka markaas la tilmaamaya urur ba ama urur duleedka ba waxay noqonaysaa marka waa urur ku jira ururka guud ku tirsanayaashiisu waxay ku jiraan ururka guud waa ka qajaar ama qare saytuun qajaar ururka guud ayay ku jiraan laakiin qajaar iyo saytuun iyo qare urur ba kuma jira taa waxaan leenahay marka waa urur duleedka ba waayahay tusaalaha xiga haddii ama ururka a uu la mid yahay 5 6 iyo 7 ururka guudna ayna haysano 1 2 3 4 5 6 7 hadda waxaan raadinaynaa marka urur duleedka a jawaab urur duleedka a muxuu yahay marka waa ku tirsanayaasha ururka guud ka mid ah laakiin aan ku jirin ururka a ayaan rabnaa inaan sheegno tusaale ururka a hadda waxaa ku jira 5 waxaa ku jira 6 waxaa ku jira 7 urur guud aan imaano urur duleedka waxa aan ku jirin maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah 1 ayaa ka mid ah kuma jiro si la mid ah 2 kuma jirto 3 kuma jirto 4 kuma jirto sidaa aweed marka 5 iyo 6 iyo 7 ayuu haystaa inta ayaa ka maqan intaasi maqan ayaa waxaa loo yaqaanaa urur duleedka a ayaa loo yaqaanaa sababtoo ah
kuma jirto ururka A laakiin waxay ka mid tahay ururka ama ku tirsanayaasha ururka guud waa 1 2 3 4 urduleedka ahna qaabkaas ayaa loo qorayaa markaad urduleedka u qorayso haddii aad doontana sawir ahaan ayaad ku muujin kartaa ururka guud laydi ayaad ku samaynaysaa laydi markaad ku samayso ga u bixi ururka markaas la tilmaamayo oo A ah ayaad circle ama goobo u samaynaysaa adigoo u bixinaya ururka A kadib waxaad ku dhex qoraysaa ku tirsanayaashiisu ay ka mid yihiin 5 ay ka mid yihiin 6 ay ka mid tahay 7 wixii kale ee soo hara maadaama ururka A aysan ku jirin ayaa waxaa dhigaysaa ururka guud gudihiisa oo laydiga ah oo ka mid ah 1 2 3 4 iyo intaa ayaa waxaa loo yaqaanaa marka ururduleedka A loo yaqaana ururduleedka A loo yaqaanaa kuwaana waa ku tirsanayaasha A waaye laakiin kan waxay noqonayaan marka ururduleedka A ayay noqonayaan maadaama ku tirsanayaasha ururka guud ay ka mid yihiin laakiin aysan ka mid ahayn ururka markaas la tilmaamay ee A ah waayahay aad u mahadsantihiin dhageysigiina wacan iyo daawadashadiina qaaliga ah fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka inoo subscribe garee adigoo gujinay gambaleedka like commentigina waa inoo muhiim waxaan rajaynayaa ardayda fasalka 8aad ee sanadkan dugsiga dhexe u gabagaboon doona inay si nabad ah waliba natiijo aad u wanaagsan ay ka keeni doonaan imtixaanka u soo food lahaanaya insha Allah maadaama ay hadda ay yihiin shahaadi Allah idin fududeeyo soo dhawaada mar labaad iyo mar kale Ustaad Mimari sharxitaanka maadooyinka scientific ee fasalada kala duwan fadlan haddii aad ku cusubtahay inoo subscribe garee like commentiguna waa inoo muhiim mahadsanid